markuu arko gabar qaaban oo social media niikinaysa ani markuu arko ilaa uu ku xamdiyaa uu dhaha ilaahay adiga ka siiyay hadana hanuunka qalbiga ku beeray inaad la kulanto qof dumar ah oo baraha bulshada gaar ahaan TikTok iyo Instagram ku gudbisa wacdigii waanada waa mid dhif ah hadana waxa inoo suura gashay inaan helno Filsan Muqtar marka hore waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo marka xigtana waa qof ma Filsan waa dhawaa walaalkay markuu ugu horeyso aad baan ugu mahadcelinayaa idaacada Himilo magacayga saxda ah oo la igu wanqalay waa Faaduma Muqtar Cabdi waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxaan waxbarashadeeda ilaa iyo dugsi sare ku soo qaatay iskuul Horseed Madiina Primary and Secondary School waxaan jaamacadda ku biiray sanad markay ahayd 2017 ayaan jaamacadda ku biiray 1 year baan hadda ka soo wareegatay intaan jaamacadda ka qalin jibiyay waxaan bartay faculty-ga Banking and Finance maxaa kugu dhaliyay inaad ka soo muuqato baraha bulshada social media inaan ku soo biiro waxyaabaha igu dhaliyay waxa kamid ahaa waxaa jirtay waqti aan bilaabay jaamacadda waxaan aad u isticmaali jiray Facebook-ga dhankaas waxa ka soo gudbin jiray ereyada dhiirigelinta oo hablaha aan ku baraarujinay dhalinyarada rag iyo dumarba qaasatan laakiin ani mar walba waxa u badnaa dhanka dumarka and then waqti uu TikTok bilowday oo maxay ahayd fasahaadkina zaid uu sii noqday marka sidaan hadda uu yahay xitaa muusan ahayn hadda waxa la helay dad fara badan oo dadkii wacyigeliyay wax u sheega waqtigaas aad ay u yareed dhalinta dadka wax yaani wacyigelisa haddana maxay ahayd dumarkii xiligaas waxay yaani xiligaas ay roonaayeen isdii kara oo waxay qaadan jireen dharka qafiifka ay aad u xiran jireen baraha barteeda Instagram-ka waxa ku soo gudbin jiray sawiro iyo muuqaalo ah xijaabka xiranahay laakiin aanan hadlaynin codkayga muuqanin marka arkay inaan Instagram-ka bulsho badan aan ku yeeshay kadib waxa isdhahay aalada TikTok-ga maadaama ay bulshada hadda u bateen adiga waxay ahayd marka ku soo biiray anigoo hadlaaya ka hor oo ku soo biiray laakiin aanu hadlaay dadka xusoo jeedinaa waxa ku soo biiray sanad markay ahayd 2020ka bishii 11 meelahaas inay ahayd jecelahay hadi 2020ka iska dheer oo hadda si dhamaatay ilaa iyo intaan hadda wacyigelinta ka bad waxaan igu dhaliyay dumarkeena qaaban marka arka waxa isdhay Allah ilahay maadaama dhalinyaro aad isla tihiin oo maxay ahayd adna adoo iyagoo qaaban maadaama soo dhigaan hada xijaabkii adna u bandhigto dhiirigelin u soo jeedis waxay isleeyeen Allah ilahay maad gabadhan wanaaga ka dayataan hamigaygu ugu weyn waxay tahay hal ama laba qof baa Allah ka dhigay in hanuunkiisa sabab u noqdo ma jirta cid kugu dhiirigelisay mise adiga ayaa go'aankaasi qaatay go'aanka marka hore aanu iga soo go'ay waxa igu dhiirigeliyeen aabahay macaan aabahay baa igu dhiirigeliyay kadibna taageero dhanka bulshada aan helay wuxuu igu dhahay aaba wada wanaagsan aad haysaa oo maxay ahayd ku sii soco anna garabkaaga taaganahay wax alaala waxaad u baahan tahay dhanka diiniyana waa ka saacideynaya aaba dhankiisa wallahi falcelin yani inuu aad ugu faraxsan yahay markuu arko gabar qaaban oo social media niikinaysa ani markuu arko ilaa uu ku xamdiyaa uu dhaha ilaahay adiga ka siiyay hadana hanuunka qalbiga ku beeray aad buu ii taageeraa farxad walaalahay aaba iyo dhanka dhamaan asxaabteeda baa kala kulmaa ii dhiirigelin ma inala wadaagi kartaa falcelinadii kala duwanaa ee kaaga iimaanayay dadka kugu xiran wallahi wanaag iyo xumaan buu isugu jiraan inkastoo wanaag ay aad u tira badan tahay dad fara badan oo igu taageeray ay jiraan dad qaarna ay yaani ka soo horjeedaan wanaag inuu faafo ayagoo ii daliishanaya gabadha codkeeda waa cooro oo anna mar walba waxaan dareensiyaa gabadha codkeeda waa sax waa cooro laakiin markaysan ku hadlaynin qool macruuf ah ayuu cooro yahay waayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا يعني هذا الكينا iyo qowlkiina xajjabina si uu san idin damcin midka qalbiga buka hadaad hadlaysaan ku hadla qowl macruuf ana waxa kamid ah amru yani in xumaanta oo la iska reebo wanaagana la ismaro amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kamid ah dhankaas ay soo maraan badana markay isdhahaan yani si ku joojin kartaa wanaageeda laakiin ani uma soo joojiyo waa fahansiyaa qofka daacad ay ka taan uu fahmaa qofkii kalena kulay dantiisu wata in badan markaan arkay gabdho fara badan oo dhanka social media oo ila soo xiriiraya qaar ii sheegaya iga ilmi waxa jira xitaa dhanka Instagram-ka marka asxaabta ku sheekeysano rag iyo dumar isugu jiraan qaar dhahay xadiis soo gudbisay nolosheeda yani bedelay oo maxay ahayd abaala kaaga haya iyo saameyn markaan kala kulmo
run ahaantii aad baan ugu farxaa waxa isdhaalay le hamigaagii waad gaartay in yar oo kamid ah inta dhiman insha Allah waan gaarayaa inay videogayga daawadeen oo kaleeto wiil baa jiray ila soo xiriiray wuxuu dhahay heesahan aad u dhageysan jiraan ahaanteeda oo qof nolosha ka dhacsan aan ahaa laakiin qof wax bartay dhanka diiniyan iyo maadiyan baan ahaa buur laakiin kuma aan dhaqmi jirin maalin baa wuxuu yiri xadiis uu isoo xasuusiyay maalin sheegay xadiiskaas oo qofka hamigiisa adduunyada ka dhiga ka hadlay oo adduunyada ku saabsan xadiiskaas baa aad ii saameeyay oo i bedelay buu yiri meel aan ka la soo xiriirin malan ugu dambeyntii markuu ila soo xiriirin oo ii sheegay hanuunkiisaba inaan sabab u yeesho aan aad ugu farxay taasi maxay kugu dhiirigelisay waxay igu sii dhiirigelinaysaa mar walba marka ka dambeeyay dadaalkayga inaan laba jabaaro halka aan ka sii wado anigana wanaagaas dadka u gudbinayo faa'iido ii tahay dadkana faa'iido u tahay oo aan mar walba wanaaga aan sameeyay inta aan qofka u gudbin ka hor waxa ka horeysa in aniga sameeyo marka nafteyda ku dhiirigeliyo aan anigu sameeyo baan dadka ugu faa'iideeyaa laba faa'iido waay ajar aan ka helayo qofkaas hadii aan hanuunkiisa sabab u noqdo iyo wanaagiyo nafteyda marka hore baan anigu faraay maxay ahaayeen waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee baraha bulshada wallahi baraha bulshada waxyaalo fara badan oo aad iga yaabiyay baa jiray waxa kamid ah in social media marka hore ay imaado gabar dharka dhigatay ayada oo cawradeedii muujisay qaabisay xitaa timahay ugu muhiimsanaa ugu weynaa cawrada ugu weynadeed ayaa u qaaban kadib muddo kadib waxa arkaysaa gabadhaas intay niikinayso social media joogto wax dhahaayo ma jirto sharafteeda ay ku ciyaartay sumcadeeda ay ku ciyaartay wax runta uu sheegay ma arkaysid markii video midka iyada soo dhigtay mid ka sii xun la soo sii daayay baa la leeyahay muxuu nin rag oo nacas ah dumar ceebteedii banaanka keenay uu ku ciyaaray muxuu ku ciyaaraa nin nacas ah ayada marka hore isku ciyaartay sharafteedii sumcadeedii soo bandhigtay maanta aan hada xijaabkan xiranaa wadadaas aan maraayo nacas walba oo damiir xun sidoo igu dhiirado way adag tahay bal iska daa inuu igu dhiirado xumaan inuu igu sameeyay asagoo xun oo og naftiisa inay xunta buu wuxuu ku hamiyaa ala ilaahay gabadhan xijaabka xiran oo kale hadaad heli leed zamankani way ku dhacan leed soo marka waxyaabaha iga yaabay waxaan kamid ah waxyaabahaas oo kale caqabad ma kala kulantaa dhiirigelinta gabdhaha ee ah inay is asturaan wallahi caqabado oo saasa maanta ka sheeganay ma jiraan bulsho aad u qalbi wanaagsan baa igu xiran caqabada kaliya mararka qaar kala kulmaa waxay tahay gabadha codkeeda waa cawro taas bay ii daliishadaan markay rabaan inay wanaag la dagaalmaan caqabad kale maanta laakiin la kulmo ma jirto waxay sameeyaan falcelin ka sameeyo xumaantooda ka falceliyo kale adiga dumar ayaa ku baneeyay codka yaani inaa hadashid codkaaga dad gaarsiisid of course umuna Aisha Allah ka raali noqday waxay ahayd xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii laga soo tagay Abi Hurayra inuu ahaa baan jeclahay ayaa yaani xadiisyada ugu badan nabiga ka wariyay qofka labaad ba iyadu ahayd saasay tahay waxa ka warinay waxay ahaayeen rag wanaageedii ay yaani gaarsiinaysay soo ayada codkeeda cawra ma aha marka gabadha dumarka codkeeda waa cawra laakiin markay ku hadaaqayso hadala aan loo baahnayn baraha bulshada markii la dhaho waxaan ku wacyigelin lahaa gabdhaheena inay aad ugu dadaalaan xishoodka iyo xijaabka waayo habeenkiisu banaa Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabihii uu ku amaanay waxa kamid ahaa xishoodka inay xishoodka aad ugu dadaalaan asturnaantana ay ku dadaalaan waayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam dardaarankiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa ya ma'shar an-nisaa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar فإني رأيتكن أكثر من أهل النار وحو يري دمرو صدقة الله بحا أو بدية استغفارتا محايا لبوير وحان أركي نارت أهل كيدي ugu badan inay yihiin dumarka waana tuu nabiga maanta ka dhawaajiyay sallallahu alayhi wasallam maanta inuu aragnaa oo astaamihii iyo waxyaabihii uu tilmaamay dhan waa u jeednaa waxa fasahaadinayna waa habeenka ragga ani waxa aaminsanahay inay hagaagi lahaayeen bulshada dhan ay hagaagi leed waa hadii ay dumarku hagaagaan laakiin hadii ay dumarku fitnoobaan ragga yaani inay hagaagaan lama sugayo waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam markale xadiis kale wuxuu ku leeyahay markuu la dardaarmay ragga gadaasha idin kaga ma tagin fitna idin kaga daran habeenka buu yiri soo marka waxaan ku baraarujin lahaa gabar walbo inay ka cabsato fitnadaas uu ragga ugu digay inay iyada kamid noqoto oo ay naartana ka xijaabato oo Allah subhanahu wa ta'ala dhankiisa aan dhamaanteen u wada laabano ayaan aniga intaas ku darsan lahaa